ilaalada xeebaha qaybta saddexaad ee gobolka Sanaag ayaa u dabaaldegay xuska sanad guuradii 23aad ee ka soo wareegtay markii dhidibada loo tagay ciidankaasi waxaana munaasabad ballaaran lagu maamuusay maalintaasi ee wax lagu qabtay xarunta taliska ciidanka badda ee degmada Maydhe waxaana xafladaasi ka soo qayb galay madaxdii saraakiisha kala duwan ee ciidanka badda iyo waliba madaxda sare oo ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland iyo dadweynaha u tiro badan waxaana ugu horeyntii halkaasi socod maash iyo gaada ka ciyaar iyo dhoolatus ku soo bandhigay cutubyo ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha ee qaybta saddexaad ee gobolka Sanaag oo adeegsanaya awoodooda ciidan ee gaadiidka badda iyo dhulka waxaana halkaasi salaan sharaf ay ku siiyeen taliyaha ciidanka qaybta saddexaad ee gobolka Sanaag waxaana munaasabadaasi ugu horeyntii halkaasi hadalada hambalyo iyo bogaadeen ku aadan madaxweynaha qaranka Soomaaliland iyo taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee Soomaaliland halkaasi ka soo jeediyay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha qaybta saddexaad ee gobolka Sanaag Gaashaanle Ismaaciil Maxamed Yuusuf taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha oo asaaska saddex jirsaday ciidanka badda soo nooleeyay ayaan u mahadnaqaya waxaan salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inta ka bacdi waxaanu joognaa ciidanka ilaalada xeebaha oo saddex jirsaday runtii waa ku faraxsanahay waa markii labaad aan ku qabano halka kan waxaana taliyaha uu hadalkiisa sii wataa uu ku goodiyay cid kasta ku soo xadgudubta Soomaaliland in ay talaabo ay ka qaadi doonaan ciidamada ilaalada waxaan kaloo aan leeyahay fariin u dirayaa cidda ku ah liddi Soomaaliland Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay Jamhuuriyadda Soomaaliland waa jamhuuriyadda ciidankeedii 23 tirsaday iyo arkaysaan meel kasta uu taagan yahay inuu heelanayo cidda ducaynaysa ee meelaha wax ka leh liici mayso waan leeyahay calanka la ilaaha illa Allah waxa ciidankan uu diyaar yahay wax kasta oo xuduudaha ku soo gudbaya Soomaaliland iyo wax kasta oo khalkhal inay galiyaan doonaya wuxuu yahay difaaceedu diyaar u yahay waxaana sidoo kale halkaasi hadalada hambalyo iyo bogaadeen ka soo kala jeediyay taliyaha ciidanka fadhigiisu yahay degmada Maydhe Gaashaanle Sare Cumar Dagaal iyo waliba xubno kamid ah bulshada haldoorka degmada Maydhe waxaan hambalyeynaa maanta sanad guurada ciidanka badda dhammaan tood saraakiil xigeen iyo saraakiil sare dhammaantoodba waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay inuu bidnillaahi kariim waqtiga maanta aynu joogno waqtigiisa inuu nabadqab iyo badhaadhiyo barwaaqo ku gaadhsiiyo iyagiyo awlaaddoodaba intaa ka bacdi sanad guuradan waa sanad guuro si fiican loo soo agaasimay dhammaan horta annagu degmada Maydhe baanu maanta ka tirsannahay annagoo ah ciidanka qaranka waxaan ugu hambalyeynaynaa sida quruxda badan leh ee annagana noogu soo dhaweeyeen annaguna aanu wax uga qabanay maanta aanu ka soo qayb galnay sanad guuradii 23aad ee ciidanka badda ilaalada xeebada oo 23 jirsaday oo aan u hambalyeynayno aan leenahay hambalyo quruxda ka muuqato oo maanta lagu qabtay degmada Maydhe waxaanu joognaa saldhigii saddexaad oo taliye ka yahay Ismaaciil Maxamed Yuusuf aad iyo aad ayaan u faraxsanahay ma sha Allah aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaa dhammaan madaxda iyo ciidamada quruxda badan علي أظن ظاهر حارونتا تلسكا عينكا